xildhibaan Khalid Maxamed Ismaaciil oo ka mid ah xildhibaanada cusub ee golaha deegaanka degmada Gabiley oo maanta warfidyenada kula hadlay gudaha magaalada Gabiley ayaa waxa uu sheegay in 17ka bisha ay dooran doonaan maayirka hogaamin doona degmada Gabiley waxaanu fariimo kala duwan u diray bulshada ku dhaqan degmada Gabiley xildhibaanku arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yiri waxaan halkan aan fariin ugu diray runtii shacabkii codeeyay waxaan leeyahay waad ku guuleysatay runtii rabitaankiina iyo rajadiina shacabkii waxa soo saarateen 13 xildhibaan oo rajaynayna in degmada wax weyn wax ka bedelaan maanta guushii bay soo dhawaatay waxa lagu midoobay majority-ga xildhibaanadu inay isbedel sameeyaan waxaan bulshada uga baaqayaa maalinka wax weyn ballanta fadhiga loo balasay yahay in isbedelkooga difaacaan oo ilaashadaan ay wax weyn u hiiliyaan haddii wax weyn baraa bulshada tahay iyo haddii hiil kalaba tahayba si nabadgelyo ah inay u taageeraan isbedelka soo socda waxaan ku rajaynahay in lagu farxo doono war farxad leh insha Allah soo bixi doono Cabdikariim Ciise Cabdullaahi Cabdikariim Istaji